maalin farxad weyn iyo guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho oo aan rajaynayo inay maanta wixii ka bilowda ay nabad ku naaloon doonaan nabadii hore u jiri jirtay ay dib ugu soo noqon doonto waxaan rabaa halkan inaan ka xuso far kaliya foolma dhaqdo waxaan rabaa dhammaantiin inaad mas'uuliyadda ila qaadeen guddiga fulinta guddiga waa inuu igu daba galaa oo hawsha sidii loogu rabo ugu qabtaa madaxweynayaasha hore waxaan ka codsanayaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharaxiinta dhammaanteen mas'uuliyadana saaran roble kaliya lagu halaynin sababtoo ah doorashaad ii dirsateen inaad idin maamulo cadaalad iyo si nabadgelyo si xor ay u dhacdo marka tan haddii la ii saaro hadda taasaan gacantayda ka baxayso marka waxaan rabaa gacan ayaad idinkaga baahanahay insha Allah haddaysan waa doontii dhinac ka duleeshamin marka gacan ayaad idinkaga baahanahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho waxaan leeyahay idinkana gacan ayaad idinkaga baahanahay maanta wixii ka dambeeyo mas'uuliyadda amniga waxaan rabaa inay adkeeyaan hay'adda booliiska Soomaaliyeed oo ah hay'adda ugu sarreysay amniga magaalada sugayso waxaan rabaa hay'adda booliiska Soomaaliyeed ciidamada booliiska Soomaaliyeed inaan amro faro inay ilaaliyaan amniga muwaadinka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan amnigayga amniga madaxweynaha amniga musharaxiinta iyo amniga qof kasta oo Soomaaliyeed سادرتيد وحان ربا إن عندنا لجو حد جدبين عندنا دب لوجيسن إن لإلهي كليها وأمني قف كسر الصوماليات مركز تاس يان فريا وحان كلو ربا هل كان إن كشجع ولا عليه مشرحين تأه إن شاء الله وإذا كبلن قاضية إن أنا قفنا حكسن دوري وإذا كبلن قاضية إن دور الشراسي حر حلال يكون عز مركز إن شاء الله قلبي نقير وشيء لكن قعنا إذا كجبهنا هذا أرجي نوايو أرجينا دواي هذا بيها مش هسيكسو قلنا الله صعدة إذا ما طبعا لا يعي إن يصير وجود أخصيها بدن وبه ذا يكون نقدان أيان فريا قف عيدنا أو لجو حد جود بيمجروا عيدنكم ملهن مش حافظ يا معارض عيدنكم ملهن كان قلدنا كان سحسنا عيدنكم ومت وعيدنكم وإلاليها جود قرنك عيدنكم والدجالها الشباب أرجع حسد على الشباب مركب حن ليها عيدنك من ماذا أتكي كو إن دمان إذا ماذا كوي ميت حسرته كذا عي مقالة مقدشو دبلو عليو جوبيه أي كي مادين لجنا صاروا مقالة مدة أفرتن يزيد ساعة جوده هذا وقبل لعبنا يسشن تبيش سنوات لبدا كون يكوبي لباتن كأهمانتا قطب كلبات إن أنا حقوق إذا ماذا وحسامين أكوي لأنن سيد مشاركة درجوين ك يو حلال كلون الراعن وحكو سابسن قلالاسي كذا عي مقالة مقدشو قطب كسدحات إن سجوني أهلو حليو سراكيش له ظروفها جاركة سيد درجوين كمشارات كأي حقوق ذا كلا عيدا أفر إن كلسوني لقدح أبورو هاي أداها أمنية يسياسيين تقبت بشوين كأمني شن إن رئيس الوزراء حكومة الصومالية وريكتو صاروا وكفر يترياش إذا ماذا غلب كسيدا إن أنا يكون من الرماء سياسة بي إن أنا بحين أمره أي كردلن كرتو خرالاسة أمني يمت سياسة ده ليه إن لما جعبوا جد خبراء عيدان أو كلا تلير رئيس الوزراء دبوا هبين تعيد ماذا قرنك تضبوا إن أنا عيد ماذا قلب كسيد اللو أديكسن الرمى سياسات فرقلين الله سمين سيدت إن دمان دنا عيدوا أي جوجيان في علدا هذا اللدا أبوري كرا علدا نعيبك سجال إن لسوء اليو جديد كيهوب كجار كلولي هاي لقو كلا قاتل دجالة كرد عي مقالة مقدشة لنا سود دايدات كيلو حراي طبعا فلين تقرشان وحمسؤول كان رئيس الوزراء هي حكومة ديس guddiga ka soo shaqeeyay hawshan dhinacyada badan lahaa iyo dadkii ay la soo kulmeen oo dhan oo talooyinkoodii ay ka soo aruuriyeen una dhaga nuglaaday ayagana inay dhageystaan oo ay muxuu ahay go'aanadanna ay la soo qaataan annagu nabadaan rabnaa dawladnimaan rabnaa dimuqraadiyadaan rabnaa in hore loo socdo oo doorashooyinkii sida qaanuunka iyo dastuurku tilmaamayo dib uga dhacsanna inaanan ka daahinaan rabnaa muddo dheer saan laguma sii jiri karo inaan hore u soconnaan rabnaa waxaan rabnaa in wax kastoo caqabad ah oo ra'iisul wasaaraha inuu xilkiisa iyo hawshiisa guto ku ah caqabad ama muxuu ahay culays in waddada laga leexiyaan rabnaa taasi waa ballan hore aan ugu wada ballan dhammaanteen hawshaas hadday naga dhammaato waa alxamdulilah aad iyo aad u mahadsan yihiin guddiga saraakiishii
ciidamadu ayagana aqbalayna aaday u mahadsan yihiin annaguna intaas hadday iswadato annaguna aqbal waaye waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inaan u sheego waxa socda iyo nabadda socota iyo dalkii inuu nidaamkii dib ugu soo laabtay waa ku faraxsannahay waa uga mahad celinaynaa waana bogaadinaynaa ra-iisul wasaare Roble inuu hawsha halkaas ka sii wado garba ayaanan u nahay cawaya casir waa u taagannahay wixii fududaynaayo dalkan doorasho nabada oo xor iyo xalaala inay ka dhacdo colaad iyo buuq iyo shoob barana aanay marna dhicin waa u taagannahay intaasaana kala shaqaynaynaa intaasaana nalagu ogyahay dadka Soomaaliyeedna ha ogaadeeno nabadaa jirta colaadi ma jirto xumaan ma jirto qof qabta ma jirto dalkan qaanuunka ee wadadii saxda ah lagu ridaa la wada qabay haddana waa la isla gartay in lagu rido inta dhimanna dadaalkeedaan la imaanaynaa waana la dhammaystiraa aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynayaashii hore madaxweynaha Hirshabeelle ra-iisul wasaarihii hore dhammaan madaxda murashaxiinta wasiirada xildhibaanada magac kastoo lagu joogo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan inaan joogno galabtana ay tahay fursad weyn waa munaasabad lagu soo bandhigay xalka shaqaaqooyinkii dhacay oo ka dhacay magaalada Muqdisho laga gaaray waa u mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha iyo guddigii uu saaray oo ka soo shaqeeyey oo ka soo gaaray xalka ka keenay waa bogaadinaynaa xalka la gaaray oo runtii caqabadihii iyo xaaladihii jiray meesha ka saaray waxaan leenahay guul la gaaray weeye hore aan u soconno hore socod wanaagsan doorasho xalaal ah iyo waddankoo ay saas uga dhammaatay wixii caqabado iyo cillado soo laabtay waxaan leenahay ra-iisul wasaare kugu hambalyaynaynaa waana kugu garab taagannahay habsami socodka howlaha dhimanna allah kugu guuleeyo murashaxiintiina waa oo madaxweyne xasan u hadlayna waa kuu ballan qaadeen garabkooda annagoo horaan kugu garab taagnayn Soomaalina ku garab taagan tahay guushaas la gaaray ayaana rabnaa in doorashada nagu dhamato insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin assalamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh